بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa sidee Israa'iil ay u balaarinaysaa isbahaysigeeda Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Israa'iil ay ku jirto dagaal toddoba furin ah dagaalkii bishii June dhacay ee Iran iyo Israa'iil oo markii dambe Mareykanku uu ku soo biiray waxa si weyn loo dareemay tabardarrada nidaamyada difaaca hawada in Israa'iil ay ku jiri karto qatar haddii aysan helin taageero imika waxa soo baxaya tilaabooyin Israa'iil ay ku xoojinayso isbahaysiyo ay samaysanayso har noqoto badda Mediterranean-ka iyo waliba badda Cas arrimahan waxay salka ku hayaan sidoo kale marinada ganacsiga iyo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ee laga helay badda Mediterranean-ka haddaba xulufadan Israa'iil cusub ee Israa'iil ay samaysanayso maxaa lagu ogyahay ujeedada ka dambaysa iyo macluumaad dheeraad ah oo arrimahan la xiriira ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bil wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa ku samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umra nambarka shaashada kaaga muuqda Somali Meat Company hilib saafiyo sugan oo la hubo waa Somali Meat Company Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyay soona maray baaritaano caafimaad oo guuleystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshada hilibka geela warshada hilibka looda warshada hilibka ariga iyo warshada lafa bixinta hilibka waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyay soona maray baaritaano caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika Khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda maxamed Cadde oo macluumaadkan soo ururiyay ayaa qadka ku jira maxamed inoo bilow warbixintan iyo ciwaankeedaba sidee Israa'iil u balaarinaysaa xulufadeeda iyo sidee u bedelaysaa caqiidadeeda xagga ammaanka kadib markii ay gashay dagaalka Marinka Gaza ayaa wuxuu dabool ka qaaday isbedel weyn oo ku yimid xulufadii ay Israa'iil lahayd iyo hadafyadii ay gobolka bariga dhexe ka lahayd waxayna dib u naqshadaysay arrimaheeda amniga iyo mudnaanta militarigeeda waxayna sii balaarisay goobaha ay militarigeeda ka howlgali karaan oo ka baxsan xuduudadii colaadeed ee hore loo aqoon jiray sida lagu soo xiganayo warbixin uu qoray suxufiga la yiraahdo Jacfar Salamat ayaa waxa uu sheegayaa arrintani waxa ay salka ku haysaa xulufaysi muddo badan soo socday dagaalkan intii ka horeysay waxa ayna Israa'iil ku guuleysatay in ay heshay fursad aan hore u jirin ayna dardar gelisay ilaa iyo wixii markaas ka dambeeyay iskaashiga xagga militariga Israa'iil iyo Greega iyo Qobrus waxa uu soo bilowday 2010kii taana waxa ay daba socotay in uu hoos u dhacay xiriirkii Turkiga iyo Israa'iil ka dhaxeeyay kadib markii la weeraray maraakiibtii la oran jiray maraakiibtii xurriyadda ee la rabay in gargaarka lagu geeyo Marinka Gaza iyo markabkii kale la oran jiray Mavi Marmara waa gartay waayahay maxaa kaloo ka jira wararka sheegaya ama warbixintu maxay ka sheegaysaa in arrintan isbahaysiga ay samaysanayaan Greega Qobrus iyo Israa'iil ay salka ku hayso gaaskan dabiiciga ee imika laga helay badda Mediterranean-ka bariga badda Mediterranean-ka ayaa waxa laga helay gaas badan oo dabiici ah saddexdan dal Greega Qobrus iyo Israa'iil ayaa danahooda ay isku mid noqdeen taasoo horseeday in ay dhisaan iskaashi xagga amniga ah iskaashigan waxaa ka mid ah inay iska kaashadaan xagga cirka
xagga badda dholotusna isla sameeyaan iyo inay isku dubaridaan xog ururintooda iyo heshiisyo xagga hubka iyo teknolojiyada militariga ah waxaana cinwaan looga dhigay in wadajir loo difaaco danaha saddexdan dal lana dardargeliyo awoodooda ay ku cabsi gelinayaan gaar ahaan xiisadan kasoo cusboonaatay xagga Turkiga hase haatee dagaalka Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza ayaa waxa uu calaamadeeyay isbedel weyn iyadoo dardargelisay howlaha militariga Israa'iil inuu dardar galo laguna ballaariyo aagag cusub oo noqday kuwa isbedel ku keenay caqiidadii amniga Israa'iil. waa gartay maxaa loola jeedaa maxamed marka la leeyahay Israa'iil waxay qaadanaysaa siyaasad ah ka hortag intii ay difaac ku jiri lahayd? warbixinta ayaa lagu xusay Israa'iil inay ku dhaqaaqday siyaasad ah inay ka dhaqaaqday siyaasadii ahayd xoog wax ku maquuni ay u bedeshay hadda cabsi gelin iyo in ay go'doomiso cadowgeeda haddana waxa ay qaadaysaa tillaabooyin ka hortag ah iyo inay awooddeeda amniga ay ku ballaariso meelo ka baxsan xuduudkeeda marka la fiiriyo waxaa loogu yeeray dhinacyada istaageeraya ama jabhadaha istaageeraya sida ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tilmaamay 7 dagaal ayaa Israa'iil ama 7 aag ayaa Israa'iil ku furan marka xaaladaas la fiiriyo Israa'iil ayaa sheegtay in ay dagaal ku iclaamisay Lubnaan waxay sidoo kale ay bartilmaameedsatay kulankii ay lahaayeen madaxda ururka Xamaas sidoo kale dagaal siyaasadeed ayay Turkiga kula jirtaa oo joogta waxaana sidoo kale ay ka faa'iiday taageerada ballaaran ee Mareykanka taasoo suuro geliyay xataa Mareykanka laftiisa inuu goobihii nukliyeerka kaabayaashii nukliyeerka Iiraan uu wax ka duqeeyo taasoo khatar weyn loo arkay. waa gartay dagaalkan kale ay ku jirto Israa'iil Xisbullah iyo Xamaas iyo xogaha la xiriira qatarta ay u aragto Xuutiyiinta inay leeyihiin waxay warbixintu ka sheegaysaa. Israa'iil ayaa sidoo kale raadinaysa in hub ka dhigto ururka Xisbullah ee ku sugan wadanka Lubnaan waxayna dardargelisay xadgudubada ay sidoo kale ku sameynayso koonfurta galbeed ee Suuriya si ay u abuurto saldhigyo military halka ururka Xuutiyiinta Ansarullah ee dalka Yemen uu weli weerarayso sabab la xiriira doorka uu ku leeyahay carqaladaynta badda cas iyo weerarada Israa'iil gantaalada iyo diyaaradaha droniska la soo tiigsanayo raqamada noocaas ah ayaa lagu xiriirinayaa in Israa'iil ay aragtideeda ballaarisay iyadoo Netanyahuna uu ka hadlayo in isbedel uu ku imaanayo gobolka bariga dhexe iyo asagoo wada dadaal oo rabo inuu dalal cusub ku soo biiriyo heshiiska Abraham loo yaqaano oo lagu caadeynayo xiriirka wadamada Carabta ee Israa'iil leeyihiin in dib loo qaabeeyo awoodda gobolka bariga dhexe. waa gartay waa yahay haddii aynu ku sii soconnaa warbixinta Maxamed waxaa moodaa in macluumaadkan oo dhan ay isku dayeysay Israa'iil inay waxay u arkayso cadow ay wiiqdo bal inoo faahfaahi dhankaas waxa warbixintu ay ka tilmaamayso. warbixinta ayaa xusaysa istiraatiijiyadan ayaa qayb ahaan guulo u soo hoyeysay Israa'iil iyadoo Israa'iilna ay wiiqday baa leeyahay qaar ka mid ah cadowgeedii iyadoo aan awood u yeelan inay ka takhalusto cadowgeeda hase ahaatee awoodaha gobolka ayaa bilaabay inay xisaabaadkooda dib ugu noqdaan xoojiyaan isxulufaysigooda xagga difaaca waxaana hadda furmay albaab cusub oo weji kale oo miriqsan ayaa gobolka ka soo food leh waxaana xusid mudan in hoosta laga xariiqo in Israa'iil ay ku dhawaaqday dhowr maalmood ka hor inay si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland oo ay sheegtay inay tahay dal madax bannaan halka Carabta iyo gobolka bariga dhexe iyo dalalka caalamkana ay si dhaqso ah cambaareen weyn ugu soo jeediyaan baaqaas Israa'iil ka soo baxay. waa gartay arrinka la xiriira isbahaysiga Griiga iyo Turkiga iyo Khubrus haddaynu dul istaagno Israa'iil iyadoo Xuutiyiin aan ka guuleysan Xisbullahna si fiican aan uga guuleysan inkastoo hogaamiyaal badan laga dilay Xamaasna weli marayka Gaza
in badan oo ka mid a gacanta ay ku hayso oo saraakiisha Israa'iil ay qirsan yihiin in dagaalka lagu guuleysan xiisadan Turkiga la xiriirta ma waxay macnaheedu yahay inay u baahan tahay isbahaysi oo aysan iskaga aadin haddii xaaladdu faraha ay ka baxdo Israa'iil muddo dheer ayay wax ka shaqeynaysay inay xiriir xagga militariga la yeelato iyo dano isku tiirsan Greega oo cadow u arka Turkiga iyo Qobrus oo u aragta wadankeeda qayb ka mid ah in uu Turkiga xoog ku degan yahay iskaashigaasi saddexdaas dhinaca ayaa waxaa la leeyahay waxaa la rabaa in saameyn ay ku yeeshaan inuunan Turkiga u gacan bannaan bariga badda Mediterranean-ka uu dhowaan gaas fara badan ka helay saddexdan dal marka la fiiriyo si kastoo ay awoodooda isugu biiriyaan sida qabiilada madaxa bannaan ay hadal ku dhigayaan Turkiga uma babac dhigi karaan laakiin Israa'iil ayaa waxaad moodaysaa in ay rabto in ay Turkiga ku qasabto sida hadalka loo dhigay in mowqifka ku aadan Israa'iil iyo marinka Gaza ay wax ka bedesho iyo wadanka Suuriya waxaan kaloo aydan meesha ka dheerayn Suuriya Israa'iil waxay rabtaa in la kala qaybiyo Turkigana wuxuu rabaa Suuriya oo hal dal ah in xukuumadda uu taageero Israa'iil sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan ma ogolaanayso in Turkiga uu Suuriya deegaanadu ka joogo oo ballaariyo Gazana uu ka mid noqdo ciidamada xasiloonida ee caalamiga ah waxaadna moodaa Israa'iil in ay isku dayeyso inay isticmaasho siyaasad ay ugu hanjabayso kuna cabsi gelinayso Turkiga laakiin khabiirada qaar ayaa waxay leeyihiin Turkiga maaha sida wadamada Carabta ee dariska la ah wadanka Israa'iil Turkiga waxa uu leeyahay awood aad u ballaaran xagga militariga waxa uu ka tirsan yahay NATO waa ciidanka labaad ee ugu ballaaran marka Mareykanka laga saaro NATO Turkiga waxa uu soo saaraa qalab militari oo aad u fara badan diyaaradaha droneska ahayn oo ay ugu caansan tahay Baghdad iyo diyaarado kale oo casri ah gantaalo ayuu hadda sameysanayaa Israa'iil laftirkeeda ayaa la dhacsanayn Turkiga inuu heshiisyo istiraatiiji la galay Soomaaliya oo uu rabo inuu dayax gacmeedii ka rido ay leeyihiin gantaalo ridada dheer ayuu tijaabsanayaa khabiiradu waxay tilmaamayaan Israa'iil uma badna in ay Turkiga dagaal la geyso haddii dagaal la gashana waxa ay noqonaysaa bilowga dhamaadka waa sida hadalka loo dhigay Israa'iil waxay ku andacoonaysaa Turkiga inuu rabo inuu soo nooleeyo dowladdii Cuthmaaniyiinta ee 100 sano ka hor dhacday waa gartay waaya dhinaca kale markaynu ka eegno Israa'iil de xulufay samaysanaysaa iyadoo markii horena wadamada Carabta heshiis la gashay Abraham waxa loogu yeeray heshiiska loogu yeerana ay ku soo biireen wadamo kale imikana Greek ilaa iyo Qobrus ay isbahaysi la samaysanaysaa laakiin Turkigu soo laba oran karo go'doon baa la gelinayaa oo kaligiis weeyaa xulufana ma leh marka laga tago NATO laakiin Israa'iil ay la tahay xulufo inkastoo aysan xubin ka ahayn NATO Turkiga shacabkiisa 90 milyan ayuu ka badan yahay Qobrus iyo Israa'iil iyo Greega haddii la isku dayo kulligood haddii la isku daro uma wax dhigi karaan Turkiga taariikh ahaanna Turkiga dagaal lama bilaabo oo dadkiisa waa dad mitid ku ah xagga dagaalka waa laga baaqsadaa waa wadan cajuusa weeye oo muddo badan adduunka talinayay Israa'iil waxyaabaha ay uga baqayso Turkiga waxaa ka mid ah haddii uu yimaado